wasiirka kheyraadka biyaha maamulka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda SBA Coca-Cola Somaliland ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay mashruuc biyo balaadhin oo laga hirgelinayo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Mashruucan ayaa waxaa maalgelisay shirkadda SBA Coca-Cola oo kaashanaysa wasaaradda kheyraadka biyaha iyo wakaalada biyaha ee Burco. Munaasabad balaadhan lagu furay mashruucaas oo lagu qabtay hotel Ramad ee magaalada Burco ayaa waxaa munaasabadaasi goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha Somaliland حسين أحمد عبد الله قدوميها قبل كتغير مسؤولين توقف رئيس شركة SBA كوكاكولا سوماليلاند إسوس صارت نوعية كلا دوانة شرابكا ما يركعين كدقمة برعية قيبها كلا دوانة برشة رير تقدر مناسبة سيا وحقورين تبكها لماريها وكالة بيها برعو إبراهيم يوسف ديريه كردي محمد ديريه حي ديبترو كمذا جديد بيها برعو وحنا كهذلين مشروعني بيا بلارين تيفايدين كلا دوانة ولا يها برشة رير برعو مشروعه وحوي والحل ومصدر بلان كوتشلا وحلا dadweynaha reer Burco si gaar ah ganacsatada waxaan leeyahay waxay mudan ku dayasho hay'adda ama kambaniga private-ka caalamiga ku dayasho ay mudan aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan leeyahay ku dayasho mudan lagu dayo anigoo ku hadlaya afka boorka biyaha Burco waxaan halkan marka hore ugu mahadnaqaynaa shirkadda SBA oo 2 sano iyo bar jirtay wax badanna wixii ay iyagu helaan ka qabtay wax badan dadka u qabtay marka waxaan aad u soo dhaweynaynaa oo aanu leenahay ku soo dhawaada Burco wax qabadkiina muuqda 2 sano iyo barka joogteen shirkadda SBA gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye iyo maayir ku-xigeenka degmada Burco munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay ka maamul gobol ahaan iyo degmo ahaanba la garab taagan yihiin waxay taageeraha looga baahdo hirgelinta mashruucan biyo balaadhinta waxaana yiraahdeen runtii farxad weyn bay noo tahay dhammaan reer Somaliland gaar ahaan reer Togdheer maanta inaynu u fadhino mashruuc ballaaran oo tashigeeda iyo tacabkeedaba runtii laga wada tashaday mid degmo iyo mid gobol iyo mid odayaal mid cuqaal dabadeetana loo gudbiyey shirkadda SBA inay wax weyn ka qabato baahiyaha degmadu leeyihiin gaar ahaan biyaha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaa noo qorsho ah hal xabo oo jaajuura hay'adda sidee Burco keenaysaa inaanu gacanteeda inta looga baahay ka qayb qaadano biyo waa nolosha meelaan biyo jirin nolol ma jirto runtii aad baanu shirkadda hawsha magaalada Burco u garatay iyada oo magaalooyin kale waaweyn oo adduunka ka mid ah Afrika ka mid ah ay u hanqaltaagayaan oo dalal hore u maray intay looga soo dhufteen noo keenay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya runtii lacagtay dalka waqtiga waa arkaysaa ay ku soo cesay taasaan ka warnaya way ku mahadsan yihiin mulkiilaha shirkadda SBA Coca-Cola Somaliland Axmed Cismaan Geele oo ka hadlayay munaasabadda furitaanka mashruuca biyo balaadhinta Burco ayaa waxa uu ka warbixiyay mashruucan biyo balaadhinta ay maalgelisay shirkadda SBA Coca-Cola oo inta badan ka qayb qaadatay horumarinta dalka Somaliland ama la furay 2012 maalgelintii ugu weynay ilaa hadda waan filayaa Somaliland la geliyo waana wakiilka Coca-Cola waxay soo saartaa sharaabiyada kala duwan ee Coca-Cola qorshahana waxaa noogu jira in sharaabiyo kale oo kala nooca oo kala jaarjaada ay soo saari doonto SBA waxaa intaa raacaa waxa kaloo la samayn doonaa warshado shiida wax soo saarka waddanka kamid yahay saytuunka kamid yahay maanguhu kamid yahay rumaanka kuwaas oo ku iibsan doono beeralayda Somaliland oo ay dib u shiid oo markay naga iibiyaan ay warshada dib u shiidi doonto wax soo saarana waa inkaan mustaqbalka waa ka mashruucii kan ka horreeyay wuxuu ahaa kii xaraf oo ay ku baxeen $125,000 loogana faa'iideeyey 50,000 oo qof oo haatan ka caba mashruucaas wuxuu dhamaaday November sanadkii aan soo dhaafay waa kii labaad kan
insha Allah ku xigi doonaa qaab mashruucan waa 6 bilood oo badnaan waxaan filaynaa inaan ku soo dedejino oo ay noqoto ilaa 4 bilood haddii aan leeyahay xafladaas ayaa waxaa guud ahaanba hadaladii laga soo jeedinayay soo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha Somaliland Mudane Xuseen Axmed Cabdulle waxaana ammaan ballaaran u soo jeediyay shirkadda SBI Coca-Cola Somaliland oo mashruucan hirgelintiisa iyo maalgelintiisa iska xil saartay waxaana uu yidhi waxa kaloo halkan ugu mahadnayaa si gaar ah hay'adan ama kambaniga SBI ee Coca-Cola oo mashruucan ballaaran oo ah mashruuc ay inoo keentay sidii burco biyaha loogu ballaarin lahaa oo ay maanta mashruucaas 6 bilood gudihii markuu inoogu dhamaado ay meel walba u gaari lahaayeen wax ka sii fiicantaa keedkii baa loo samaynayaa meelaha kale oo noognaho biyo la'aan badan baa ka jirta caasimadda biyo la'aan baa ka jirta mashaariicoo lacag badan ku baxeen oo dibadda laga keenay baa u socdaa laakiin wali keed ma hadal hayaan waxaanu ka shaqaynaynaa sidii biyo loo gaarsiin lahaa meel wanaagsan bay u marayaan maanta burco waxaanu u jeednaa war keedkii baabay noo socday reer burcow shirkadda SBI Coca-Cola Somaliland oo shirkadda soo saartay noocyada kala duwan ee sharaabka kana mid ah shirkadaha ugu waaweyn guud ahaan Somaliland ayaa badankaba ka qayb qaadata horumarinta baahiyaha bulshada Somaliland mashruucan biyo ballaarinta burco ayaa wax weyn ka tari doona baahiyaha bulshada ee dhanka biyaha ayadoona la shaaciyay waqti kooban gudahooda ay biyuhu si fudud ku gaari karaan 120,000 oo qof oo reer burco iyo nawaaxigeeda ku dhaqan Khalid Bakeyle shabakada caalamiga ee Itraaf News burco.